naagtii hadda wareysanaysa ma arkin way كم حاجة سوق هذا السوق شو عينه dhammaan jaaliyadda halka joogta iyo marti sharafka meesha jooga waa salaameynaa waxaan ku salaameynaa salaanta islaamka bacda salaam waxaan idin weydiinaynaa caafimaad ahaan maanta meesha waxaynu isugu nimid isu sheegi mayno waa xoojinta iyo midnimada iyo xornimada ummadda Soomaaliyeed siday ugu weyn tahay inaynu shucuurteena muujino isu nimaano maalinta farxadda wada qaybsano insha Allah waxaan la hadlayaa ummadda Soomaaliyeed marka koowaad waxaan la inaan mahadcelin ay koow noqoto marka xiga waxa weeye barnaamijkan maxaa inoo qabsoomay maxaan inoo qabsoomin iyo halka aynu insha Allah billahi kariim salim walaalayaal sidaad ka warqabtaan jaaliyadda waqtigii la asaasay labadii sano hadda waxaa bilba uga dhiman meeshii maalintii aanu nimid laga bilaabay iyo maanta meeshaynu joogno waxaan maraynayaa qiimeyn badan uma baahna alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxa inoo qabsoomay oo koow ah inaynu wada jirno inaynu wada joogno inaynu ka shaqayno danta Soomaaliyeed waa qodobka koowaad oo hadafkeenu ahaa oo inoo hirgalay ilaahay waa mahad oo dhan iska leh aan uga mahad celinaynaa iyo ummadda Soomaaliyeed oo intii aanu meesha joognay si hagar la'aan ah noo garab istaagay noola shaqeeyay noo heelanaa aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa walaalayaal sida aad ka warqabtaan marka aanu meesha nimid waxyaalaha ugu liitay aanu rabnay inaan wax ka qabanno waxa ka mid ahaa ummadda Soomaaliyeed ee gurubis joogta sidii ay isu aasan lahayd siday diintooda u ilaashan lahayd siday u midoobi lahayd iyo sidii ay wax u wada qabsan lahayd waxaan isleeyahay naxariistii janna Allah ka waraabiyo markoonkaynu shalay soo aasnay waxyaalaha aynu ka ilbaxnay aynu ka weynaanay waxa ka mid ah aynu maanta ku faani karno in ummadda Soomaaliyeed maanta gurubis ciddii kaga dhimataa ay koow tahay inay wax wada qabsadaan is-aastaan iska warhayaan ilaaha mahaddaasoo dhan leh iyo guddigii jaaliyadda ee ka shaqeeyey ee u dabar adeegay ee u helanaa waqti badan taasi qodobkii koowaad oo jaaliyadda loo asaasay lahaa qodobka labaad oo xoojinta iyo midnimada iyo wadajirkeena waxaan u malaynayaa inaynu maanta halka isugu nimaano inaynu u dabaaldegno maalmihii xorriyadda ummadda Soomaaliyeed ha joogeen Jabuuti ha joogeen Soomaaliya ha joogeen Somaliland inta Soomaali degto meel kasta ay joogto waqtigii xorriyadda ayaamihii xorriyadda ee lagu jiro inaynu halka isugu nimaano shuruurteena ku muujino taasna ilaahay baa mahad oo dhan u leh iyo inoo suurageliyey iyo guddigii jaaliyadda ee waqtiga badan u soo dhabar adeegay xaggee maxaa inoo qabsoomay walaalayaal jaaliyadda markii la asaasay waxay ahayd waqti ummadda Soomaaliyeed والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله خالق بارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم The Tide Boosted Test. Clothes smell like work. Tide is boosted with double the cleaning ingredients for a one-wash clean the other stuff can't match. Test passed.
Strawberry Somalia is cleaner water, clearer flavor. It's got to be Thai. Earning more points for you than the most. DJ가 먼저 하지를 마. DJ가 하지를 마. 이 사람 열어줘. Okay. First of all, I want to thank you for inviting me to the Somalian Heritage Week. Now, you have to say that in Somali? Somali Duckin? And what does that mean? Oh, okay. So Somali Duckin. And then I'll try something totally different. And I don't know if you'll understand. I better take off my glasses so I can read it. And we'll see whether or not I'm saying this correctly. But it says Galab Wanagsan Damanti. So that is good afternoon, everyone. So I thought I'd better have some Somalian in my repertoire here. So thank you very much for inviting me. Also here with me is one of our counselors, Anne-Marie Phillipson, who sits down here. So if you want to stand up, just in case they don't even know who you are. If we have any other counselors here? Okay.
Not seeing any. Do you have to interpret for me or not? Because every time I go to another country, I always have an interpreter. I don't understand what I'm saying. Oh, okay. Huh? So anyway, thank you very much for inviting me here today. And I know that the Somalian community in Brooks is a very, very large community, as I can see from here. A lot of you I probably know. I walk around with my wife all the time around town, and I'm walking through the community, so an awful lot of you I know. So I always appreciate seeing those individuals out in the park. I enjoy seeing them out by their apartments, etc. And I know that the Somalian celebration today will be showing the rich culture of the Somalians. It'll be showing the history of the Somalians and the contributions of Somalians to our community, probably through music, which we probably will be getting. I hope so anyway, because otherwise I might have to leave early. There's not going to be any music. I might have to take off. And I'm hoping there's some food. Is there food too? Okay, and not just bread from over here. Okay, as long as there's some more food. Because I'm a little hungry, so there's got to be food. But anyways, I truly appreciate all of you in our community and what you do in our community. It's much appreciated. And so with that, I'll probably just say thank you very much for inviting us. It's much appreciated. And I'll hand the microphone off to somebody who will probably speak Somalian more than I do, because I'm not Somalian. Okay, I could be an honorary Somalian? Oh, okay. Huh? You love one accent? Okay. Anyway, once again, thank you for your heritage in Canada. It's much appreciated.
Thank you.